biyomareenadaasi waa muhiim bay adduunka maanta ama badmareenadaasi waa muhiim maxay muhiim ku yihiin horta waxay muhiim ku yihiin matalan hormis soo qaado hormiska la isku haysto boqolkiiba 730 waxyaalada muhiimka ah ee dunidu isku hayso ayaa mara waxa loo yaqaano maaragtay waxyaalada xayawiga ah ee nolosha ay ku xidhan tahay ayaa mara boqolkiiba 30 ya gaaska adduunka meesha mara waxay matalaan biyomareenada adduunka oo dhan waxay matalaan استراتيجية عسكرية waxay matalaan استراتيجية أمنية waxay matalaan استراتيجية dhaqaale saddexdaa markii la isku geeyo maxay noqdaan استراتيجية siyaasadeed marka caskarigii ciidankii securitigii iyo loo geeyo dhaqaalihii maxay isku noqonayaan استراتيجي bay noqonayaan marka yaa xukuma juqraafiga xukuma mise siyaasadda xukuma si kale haddaan u dhino ma juqraafiga xukuma mise awoodda xakunta ma waxa xakuma dadka meesha degan marka matalan hermis oo kale yaa degan Iran iyo Cumaan ma iyaga xakuma mise siyaasad caalami oo la dhiga xakunta soo waxa garatay ma marka waxaa jira wax dhahdo halka ay ka leenahay juqraafiga mise siyaasadda xakunta waxaan ku dari karnaa qaanuunkuna ku soo galaa xeerka caalamiga waxaan kaloo ku dari karnaa dhaqaaluna ku soo galaa marka maxaa xadidaya meelahan ahmiyadooda waa juqraafigii waa siyaasaddii waa xeerkii iyo dhaqaalihii haddaan matalan qaanuunkan la idhaahdo qaanuunka dawliga ee badaha wuxuu soo maray 4 jaranjaro waxaa jirtay qaanuun jirin laakiin waxaa jira curfi dhaqan qaanuuni jiro la isla ogol yahay dhaqanka qaanuunigan waxaa xadidayay haddii la isku qabto meel biyo mareen ah amba badmareen meel haddii la isku qabto muhiim ah baalmandab oo kale haddii la isku qabto jabal daariq oo kale haddii la isku qabto matalan hormis oo kale waxaa la eegay marka la isqabto maxkamadda la isla tago waxay xakunto iyo xeer noqonaya kaaba hadda lagu dhaqmay waxaa loo yaqaan curfi dawliga amba waxaa xakumi jiray اتفاقياتك أي جمعية قرمها أي جويان الشيء عالمي يا لو حكومي جري ولا سقوا أفكرت أم بوا حكومي جري ممارسات دقن كدولة ده سأودق منهم دولة ده ولا سقوا حكومي جري مركز هذا مرحلة وراي حيد مرحلة ضلبات وحيب العمتين مركي لا أساسي وحلو يقانو حركة عرفية حكومة بضها كوسا قال بقولي أفرتني سقال كيف بالعمتين أفرتني لحدي إلا واحد بات أفرتني sagaalkii taasi waxay ka dhalatay markii 44 askari oo ingiriisku uu leeyahay bomb la dhigay qanaabil la dhigay ma aragtay Albania la dhigay ay labadii duuri ama labadii markab ay jiiran ay qarxeen oo 44 ciidamada ingiriisku ay dhinteen markaas baa la yiri 1949 wariyaa مضيق waxaa loo jiraa Mareykanka waxaa loo jiray Corfu hal la dejiyay xeer marka xeer ba marka la dejiyay xeerka la dejiyay waqtiga ay curfiga dawliga waxaa lagu qoray dawladuhu waqtiga ay nabad tahay waxay xaq u leeyihiin doonyahooga badaha doonyahooga dagaalka inay mari karaan biyo Mareykanka mari karaan laakiin markii nabad ay nabad tahay waxayna yiraahdeen umana baahno inay sii qaataan ogolaasho xukunka curfiga waxaa lagu dhisay 3 mabda oo caalami ah waxaa dhig dawladuhu ay ku fiirsaya dawladaha madiiqa maraya biyo xidhanka maraya meesha biyo Mareykanka maraya waxa weeyaan waxay ogol yihiin in waxa loo ogol yahay inay maraan waqtiga nabadda waa koob mana ah inay amar u qaataan marka ay maris bari'a maris yani nabadgeliyo markay marayaan saddex waxay dhahdeen دنياها دقالكم حق بيليين إننا مران يكونن أمر فصحيسن أوكي تاسي مرحلة بحيد ولا صورة في مرحلة دي وحالة قاليه هشيسكي جنيف كم سقال بقول كنتون يا سقالكي أو قرال كيكو والله قريب مركز دمي وحالة قاليه شركي قانون هذا بضاها صدحات أو بلامي تضباطين يصدح دي لما هذه سيديتني يلا بدي كم سقال بقول kaasi marka wuxuu sameeyay wax raado nidaamka marista waxa loo yaqaano
passage and transit si transitka wax u mari karaa si passage-ka u mari karaa waxaa kaloo la sameeyey almuruur albari waxa loo bixiyey waa passage-ka loo bixiyey ee maaragtay maxaa dhahdaa inoffensive maxaa dhahdaa inoffensive baa dhahdaa awood maaragtay waxaa lagu marayaa si bari ah markaa taasina markii saddexaad waxaa la sameeyey wadciga qaanuuniga waa tan khatarta waay wadci baa loo sameeyey qaanuuniga oo loo bixiyey jinsiga saddexaad meesha biyo mareenkaas waxaa la yidhi wuxuu leeyahay xeer loo yaqaano jinsiga saddexaad leanna waa muhiim inaan baran maxaa yeele annaga agteena balmada baa yaala haddaan waxaan baran weyno hadhow tole wayna qabsanaysaa baashani jinsiga saddexaad maxaa loo bixiyaa keenay waxaa keenay nin talyaani ah oo la dhahdo Tiolio Scovateri muxuu keenay wuxuu biyo waa saddex biyaha gobolka biyaha dowladdu ay leedahay cilmiyaha daakhiliya xuduud baa jira loo xadiday dowladdu baa inay biyaha yeelato waa kii Soomaaliya Kenya ku kala baxeen biyaha maxaa dhahdaa waa biyaha daakhiliga sida dhulkaaga aad u leedahay baddan in ku leedahay biyaha la dhahdaa biyaha iqliimiga adi iyo waddan kala isla leh waa siduu Erdogan sameeyey markuu Libiya heshiiska la galay badda intaa soo qabsada annintana soo qabsana iqliimiga iyo noqonaysaa badii biyaha iqliimiga dhahdaa saddexaad waxaa dhahdaa biyaha bayniga waa biyaha ka baxsan labada waa biyaha caalamiga biyaha caalamiga waa ka saddexaad weeyaan maxaa ka mid ah ka Hormuz Bab Mandab iyo Jabal Tariq buurta Tariq marka qaanuunkaaba xakuma markaas adduunka xakuma okay su'aashu waxa ka xawayaan dowladaha dul degan meelaha sida Iiraan iyo Oman oo kale ma isticmaali karaan meeshaas iyagoo adeegsanaya xaqu difaaca nafteeda difaacaya iska qabsan karaan biyaha markuu dagaalka jiro waxay leeyihiin ragga culimmada qaanuunku ahaa laakiin laba arrimood bay ilaalinayaan waxay ilaalinayaan miciyaaru daruura necessary waa inay necessary noqoto lagaba maarmaan iyo tanaasub waa maxay intaad isticmaalaysaa la eegayaa kuwa nabadgelyada waa sii deynaysaa kuwa aan dowladaha colahayn waa sii deynaysaa laakiin dowladii ay hayseen ma marayaan waad ka celinaysaa inay maraan waa tanaasub xataa kuwooga madaniga ma mari karayaan waxaa maraya uun dowladaha aanan ishayn بمثل ما عوقبت labadaa marka maxaa loo bixiyey waa daruuri iyo tanaasub waa maxay waxaad qabanaysid waa inay u qalanto wax lagugu sameeyey inay isleeyihiin iyo inay daruura tahay nafseer tahay markaasi waxa weeyaan waa juqraafi baa xakuma saad aragtay maxaa kaloo xakuma siyaasad maxaa kaloo xakuma qaanuun iyo dhaqaale هذه الدولة waxay u fikirtay si istaraatiijiya waxaa iminka hadlay madaxweynahooga ninka lahada Xi Jinping u hadlay wuxuu yidhi waxaan u baahannahay 4 leanna wuxuu ka baqayaa dagaalkan waxaa loo galay waa isaga maraykanku wuxuu burburinay waa isaga wayaan boqolkiiba maxaan ku idhahdaa 50 gaaska bariga dhexe ayuu isticmaalaa wuxuuna u soo martaa Hormuz marka Hormuz waa muhiim ba isaga u tahay wuxuuna haystaa 3 sano qarleeyin qaarna waxay leeyihiin 120 cishaba gaas ku filan buu haystaa haddii halkaa dhaafto halis buu galaya markaasi isagu waxay u tahay muhiim bay u tahay meesha la dhahdo Hormuz Iiraanna muhiim u tahay maxaa Iiraan muhiim u tahay warki doonaa wuxuu yidhi 4 shay buu soo badhay ibika intuuna madaxweyne Trump tagaya oo ku socdaa halkaas Shiinaha intuuna iman wuxuu yidhi adduunku maanta wuxuu u baahan yahay wada noolaansho nabadgelyo aniguna waan ka qayb galaya buuri haddii tama daawan kara buuri adduunka laba wuxuu u baahan yahay buuri wadanadu inay dhulkooga iyagu ka taliyaan siyaada wadaniya in la fargeliya maadalka dowladaha 3 wuxuu yidhi qaanuunka dowliga waa la ixtiraamo awal toole maraykanka oran jiray saas qaanuunka dowliga waa la ixtiraamo Shiinaha iyo la jiro ruushka isagii baa leh 3 wuxuu yidhi waa in la isla ilaaliyo horumarka iyo ammaanka horumar baan samaynaa ammaanna ma jiro ma soconayso ammaan iyo horumar waa takaamul 4 shay iyo aniga talankooda hadlayna
marka Trump markuu soo socdo waa inuu afartaa shay limaada muxuu saa u leeyahay waxaa leeyahay Shiinuhu iyo Iiraan waxaa dhex maray wax loo yaqaano heshiis istiraatiiji ah oo isgargaarsi ah oo soconaya 25 sano sheekh oo bilaamay 2021 sharakadaas heshiiskaas muxuu soconayaa ilaa 25 ilaa waxaan jeedaa 25 sano wuxuuna bilaamay 21 u fiirsa lacagta ya 400 bilyan oo dollar baa dhex maraysa intaas arrintaasi ma aha arrin caadi ah waa arrin muhiim ah marka muxuu khasaarayaa Shiinuhu 400 bilyan oo dollar muxuu khasaarayaa 25 sano Iiraan duway muxuu khasaarayaa gaaskan arrinta labaad Shiinuhu wuxuu heshiis la leeyahay khaliijka oo dhan imika 224 ma waqti dheer baa waa shalay waxaa dhex maray Shiinaha iyo wadannada khaliijka bas 300 bilyan oo dollar 2024 iska daaway beerta kulli markaasaa soo akhriyaan 300 bilyan oo dollar baa isaga iyo Sacuudiga isaga iyo Qatar isaga iyo Imaaraadka isaga iyo Kuwait dhex martay khaliijka weyn khaliijka isaga iyo Cumaan 400 u geeyay waxaas oo dhan Chinaha way taabanaysaa sidaa daraadeed China muxuu sameeyey asana walaad maxay tahay wuxuu siiyey dowladda Iiraan dayax gamceed dhan oo dul dhigay Iiraan dusheeda oo u sheegay meeshu madfuuc soo socda imika dadkii la leeyay way yaraadeen madaxda arrinta labaad waxa uu sheegay raadaaradu meesha ay leedahay way garaacday arrinta saddexaad wuxuu tusay meesha ka soo kacayaan hubku walidaalka Iiraan u garaacay khaliijka waxa Qatar ka soo kacay way ogtahay Imaaraadka waxa ka soo kacay Sacuudiga waa been meesha laga soo arkaysaa لأنه waxa la siiyay satellite waliba la soo dhaweeyay meeshu yaalo oo khaliijka la sawiraya arrinta saddexaad si waxaan u badbaadin muxuu sameeyay hub buu siiyay diyaaradaha lagu soo rido laakiin uu diiday anuu basiin hub aan mar hore ka iibiyaa jira way tatwiirisay guuli evolution bay ku samaysay ruushka haddaanu imanno ruushku dagaalka wuxuu u noqday faa'iido weyn Ukraine baa laga mashquulay Ukraine buu garaaca si nabadgelyaha u fiican ayuu garaaca waxay u keentay inuu heshiis la bilaabo Jarmalka iyo Faransiiska uu kala sheekaysta wixii la oran jiray waqtigii de Gaulle madaxweynihii Faransiiskii hore la oran jiray Awroba alwaahida afdal min Awroba algharbiya Yurub juqraafiya in la mideeyo uu ku jiro ruushku inta laga fikirayo in Mareykan la midoobo badan oo dhaxayso oo isku dhahay kaba mabaadi isku raasamaaliyad iyo xilba Atlantic iyo maartay Australia no waxa ka fiican beeran juqraafiya ولذلك هذا دورين فيلسوف يقول هذا الجغرافيا أهم من المصالح جغرافيا كم مهم سن دارها مركز قاركود وطن اسكودنتينو كافوق جارك هذا سؤال حتى أود بأود كدو سمعين أود كودو بقى مهم مركز روشكي جرمال كيبولا بلاوي مدة كله روشكي فإذا بدنا ما تقانا جاز كيسي أو العنقبتين اللي وهي $100 ممكن يمشي عندك أولي العكتي ساعة عن دولار هين عن $1 هين كرتي أو ستوس على وجه قاطع وضرني إيش يوم هندية كم بيدا يا قرطة جرمال كينو حلو ريا صادر ما قديته كرتي مركا إسقنا محمد نقطة فايدو ويبون نقطة مركا وضرني ووينا قارنا ومارتي دباتوي بكرة عاي قارنا أهمية دي بيواركيان waxay leeyihiin culimada siyaasadda baara waxay leeyihiin arintani halis waxay gelin doontaa wadanada aanan tashan ee loo taliyo waxa ka mid ah khaliijka walidaalika khaliijku imika waxay qasbayaan maraykanku inuu dagaalka joojiyo baryootan qasamayna baryotan marka intaas ka bixi kartay